haddii ilaahay yidhaaho dib u heshiisiin lagu maamuli doono la isugu keeni doono dadka walaalaha ee reer koonfur galbeed cid kasta oo reer koonfur galbeed oo wax tabanaysana gobol baan u fidinay waana bilownay waana soo dhawaynaynaa insha allahu dib u heshiisiintaas waxaan kaloo si gooni ah noogu joogo madaxdaanadii gudoomiyaha baarlamaanka federaalka mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan waxaan ka codsanaynaa haddii ilaahay yidhaaho inuu maadaama constituency-gii iyo deegaanka uu ka soo jeeday uu yahay inuu nagala qayb qaato uu u haro munaasabadan dib u heshiisiinta iyo gogoshaan aan fidinay asagana uu nala dhameeyaan ka codsanaynaa insha allahu asaga iyo cid allaale iyo ciddii reer koonfur galbeeda oo madaxa oo inta joogta mas-uuliyiinta arrimaha cadaaladda waxaan hormuud ka noqon doonaa in sharciga loo sinaado waxaan doonayaa inuu maamulka noqdo mid u adeego shacabka ee aan adeegin si taasi loo helo maamulka waxa uu qaadi doonaa tallaabooyin muuqdo oo dib loogu soo celinayo kalsoonida shacabka maamulkaygu wuxuu astaan u noqon doonaa siyaasad cad oo dib u heshiisiineed oo dhex marto beelaha ku dhaqan koonfur galbeed taasoo horseedi doonto kalsooni iyo is-ammaanin waxaan halkaan uga tacsiinayaa intaysan doorashada dhicin doorashadii koonfur